yeeray sagaalka qof ee Villa Soomaaliya loogu yeeray niyow waxa la yiri sagaaro baa la yiri sagaaro saxara la arki doonay aas-aastaa baa la yiri lugtay saas ku tiraahdaa laano gacmo ma qabto saa markay tirahdana waa kala firdhisaa qof kasta oo meesha marayna haduu ku soo baxo wixii meesha yaalaana waa saxaradii waa daadsan tahay marka new filinkan Villa Soomaaliya ka soconaya anigu waxaan aaminsanahay waa branki weey waxa ka shacbiyad badan ka magaranaysa ka qiimo badan oo yaani views badan lagu heli karaa dadka TikTok ku jira oo kale iyo social media especially waliba nimanka dhalinyarada ee generation career ee talentiga sameeya Xasan Sheekh Maxamuud fiiriya wali isuma haysto inuu madaxweyne yahay dagaal buu ku jiraa dagaalku ku jiraana wali wuxuu u haystaa in Facebook wali wax lagu qorayo isaga iyo asxaabtiisii iyo raggii social media ku jiray sidoodii wali u qabaa inuu wali wax ku wadi karo still wali isuma haysto ninkan inuu madaxweyne Soomaaliyeed yahay 15 May la doortay caadifada iyo cunfiga iyo dagaalka ku jira iyo waxa uu wado banaanka yaalaan waxayna lid ku tahay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo targetkiisa koobaad fikirkaasna waxa qaba isaga iyo saaxiibadiisa innaga hadaba shacab Soomaaliyeed baan nahay maxaa ina la gudboon waxa ina la gudboon Xasan anigu hadaayeeto hore baan u sheegay waxaan ku yiri madaxweynahan haduu ka soo noqdo waa ka xumay horta ma arkin laakiin waxaan madaxweynahan haduu ka soo noqdo meesha la yiraahdo meesha la yiraahdo Eritrea oo uu Soomaaliya yimaado oo ogaan doontaan baan nimankan dhalinyarada ah ee u xushay yaani damul jadiidka ah ee la asxaabta ah ee xilka u doontay haday doonaan qaab qabiilnimo meesha ha ku galeen haday doonaan qaab ma garanaysaa taageerayaal ha ku galeen inay Soomaali heshiis ay ma garanaysaa u yihiin waa ogaan doontaan baan ku yiri waxaan ku yiri dadka habeen dhexdaasan la hadlay waxaan ku yiri marka ay shirka jaraa'id qabtaan fiiriye baan ku yiri siiqada meesha hadalka meesha ay mari doonaan waxay oran doonaan madaxweynuhu waa maadsan yahay dalku dib ugu soo guriyo noqday Ilaahay subhanahu wa ta'ala waa mahad iskale waa u mahad celinaynaa journalismka iyo dhalinyarada reporterka haday meesha yimaadaan waxyaabaha ugu badan laga hadlayo waxa weeye madaxweynuhu waa la kulmay dhalinyaradii iyo askartii Eritrea mid buu gacan qaaday yaani waxyaabo saas oo kala marka taasna macnaheedu waxa weeye waxay ku qotontaa oo nuxurka ujeedkooda uu yahay hadii uu dalka dib ugu soo noqdo dhalinyaradu waa la helay ujeedku intaas weeye marka 5000 troops in Soomaaliya maxaa Cabdullaahi Farmaajo iibsaday oo dadka iibsaday adeero 100 dhalinyaro ah oo dumar ah oo bikra ah oo Soomaaliyeed ba Saudi Arabia ka iibisay oo xabsiyada lagu kufsaday oo wixii looga wadanka ka dhaceen oo intay soo hadleen oo social media ka soo muuqdeen yiraahdeen marxalad adag baan ku suganahay oo waliba talageliyay ay ku yiraahdeen safaaradda Sacuudiga la hadla taas korkeeda lacag lagu qaatay barnaamijkan iyo shaxdan 5,000 oo askari in Eritrea la geeyo ciidan qaran ay yihiin iyagoo wadaniyad iyo nationalism lagu abuuray qarankooda ujeedkooda waxa inay difaacaan shaxdan nin la yimisax warsho kale horta odaygu la yimaadaan jeclaa Xasan Sheekh Maxamuud wali still dagaalkiiba ku jira wallahi beenidii sheegi maayo yaani anigu ima dhibin caawa ima dhibin wax weyn uma arko waayo waxaan u arkaa waxaan inay branki yihiin dadkan waa loo yeeray masaakiin weeye ma fahanti adaro kistooda loo tuuray maxaa ku diidaysaa inaan dood stock kistooda loo tuuray dadkan waxooda waa loo tuuray kamarada lagu beegay odayga softigu soo qaatay indhuhu marsaday ma fahanti softiga markuu indhaha marsanayo oo qiiroonayo 2012 markii uu gabra ku hayay Villa Soomaaliya muxuu qaranka ugu qiiroon waay Soomaaliya gabra maamul jireen su'aashaas waa inay isweydiisaa waxaan wax macno weyn sameynaya maaha madaxweyne Sheekh Maxamuud wuxuu yani madaxtooyada ka sameeyay hooyooyinkii mataqaanaa meesha la isugu keenay يعني waa wax dadnimada
كحن بانو آمسناي واحد مدحوين قرن سميانا يعني ما أهين إنكو مدحوينه شلي دويد يعني عيدا كاس وحكالها يعني ما أنت إنه وضر ضدكي سوماليادي عيدا كي يعني قف كاس واحد آمسناي واحد متغاناي أن لا تلقى كريم ويا يعني رياليتي لا شيء يعني آدي هذا مهمة حتى واحد أركي هويو كمل هويو كائن الرقية اللي هذا فيليا لابد يكون يسقالي تون كي دولتي هوري محمد عبد الله فرماجو المهي اللي هذا الشيء أفكر أنا حكيت المهي هو الحظ السلو هو يدي عاو أنت الله صور استأجيتي فيه أي تلعاو يجو هوري يسوي كي يعني لحظ أنا لحظ إلا عليك محاين قف محا مركب مدحوينه محاد مركب مدحوينه قف كويه دي أنا متغاني علنا كعب سنين ومدلك حشوني يعني يعني هويوين كا waxa laga soo qaadaya hooyooyin aan weligood ba mutaqaani carruurtooda la hadal on the recording waxa yaala maamada iyadoo la qasbin gorina lagu qaban in carruurteedii la hadashiyo midda kale bilaa calaykum shanta ku askari ku xareysan xerada ma dhowrka qof aynu arkaynay oo kaliya ayaa dhalay mid waalidiintii kale iyagu ma laha jir dhaqmo ma laha miya hataa BBC dib ugu noqotaan odaygii boosaase wiilkiisii mataqaanayay beenta talaga sheegtay uu dhintay lagu yiri ka kac meesha lagu yiri markii la hadashiina BBC la hadlay war wiilkaygu waa nabad qaba imika la hadlay dadka ka daaya beenta yani 3-4 sanadood dambe beentina lagu soo waday hadii loo jeediyo loo cusboonaysiiyo taasi yani dadnimadana dhaawac bay ku tahay madaxweynaha laftarkiisana dhaawac bay ku tahay marka madaxweyne xasan sheekh maxamed waxaan leenahay madaxweynaha qaranka still waxaan leenahay madaxweynaha qaranka madaxweynaha ka yeelimayno ciidankii aan soo arkay iyo waalidiintii markii mid waan ooyaya iyo ciidankii waa la gatay aksum baa lagu soo laayay oo waxba kama hadhin iyo ciidankii waan soo arkay iyo ilintan u eeg mataqaanayay ilintii xaaska cid maxay ka yeelaysaa ma jirto aniga shalay lahaa walaalihii halkan ku lahaa madaxweynaheeni weeyaan waa madaxweynaheeni qaranka in la aflagaadeeyo waa qalad hadda aflagaadatani maaha waxay tana tahay fain tanaasatum fi shay'in farudduuhu ila allahi wa rasuuli yani waxa aniga madaxweyne aan ku muransanahay waxa weeyaan aan madaxweyne aan ku haystaa waxa weeyaan madaxweynow laba mid isla keen laba mid soo gal ciidankii way baaba'een meeshii ciidan kuman arag intay waxoogaa yar la tusano waa dhowr boqol qof oo dhowr boqol qofna mataqaanay waa dhaawac bas talaaba qaad maanta dalka madaxweyne ka khiyaano qaran buu sameeyay madaxweyne adiga ka horeeyay maxkamad weyn la soo taago waxaad tiraahdaa inta shacabkaaga soo hor istaagtid ciidankii Soomaaliyeed waan u tagay waan soo arkay waa ciidankeena si fiican bay noloshooda u fiican tahay waxba ma gaadhin wixii hore la sheegayna waa propaganda waxba kama jirto ma intaas madaxweyne ka xishoonaysa billahi calayk ilaahay ma nadka cabsanin ana qiyaama tagaysa bari waxa laga yaabaa madaxweynaha adoo madaxweynaha ma gaadhin baa yiri wala ii dhiibay baarlamaanka wala ii soo sheegi jiray buu yiri taa sug caliyo adigu kaamaan soo dhaxgalin please madaxweynaha afayeenumatiide in yar iga lahaada aad baan kelmadda aad baan maxay heedayeen fiidiyoga madaxweynaha uu soo duubay uu xanaaqay yani wax la eega karayana maaha yani wax dadnimada ku soo baxayana maaha waxay muujinaysaa in mataqaanayay yani dalkan la khiyaamayo oo dalkan haadaan laga sii ridayo madaxweynuhu isaga oran jiray dhiiqa maxay hayday lagu hebel lagu galiyay madaxweynuhu hadda dhiiqadii lagu hala soo gashay ka joog baan leenahay ka daabaan leenahay mataqaanayay waxyaalahaasi wax dadka qabta maaha
waalidiintan wax qabta maaha muqdisho oo keliya gobolka banaadir oo keliya carruurta kuma maqna 18 gobol ee Soomaaliya sida 18 gobol Soomaaliya shanta Soomaaliyeed meesha degantoo dhan bay carruurta ka maqan tahay mid kale waxaan la yaabay ciyaalkan adeerka oo ahaa ayaa soo arkay ciyaalka maxay waxa isku war maxaa keenay ciyaalka adeerka oo ahaa meeshu waa ciidan qaran weeyaan waxaas wax madaxweyne uu ku hadlo maaha waxaasi wax madaxweyne uu ku hadlo maaha ilaa calaykum markay arigu tan oo kale taagan tahay madaxweynaha runtaa loo sheegaya lana khaafu lillahi loomata laa'imi ilaahay mooyaan cid aan uga cabsanaynaa yani ma jirto aan uga baqanaynaa ma jirto xaqa inaan sheegno annaga shalay walaalaha qaar madaxweynaha aad u dhaliiliya ku lahayn ka daaya madaxweynaha gafka waad yani ka gafaysaan maanta anaga leh madaxweyne waad gafaysaay umada gafka ka daa ilaahay ka cabso assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh madaxweynuhu Eritrea uu tagay heshiis buu la soo saxiixday waliba qurux badan ciidankii uu u tagay oo waliba ayagoo noocyo kala duwan ah oo kuwii badda leh oo kuwii dhulka iyo cirka leh kuwii macnihii ciidankaas quruxda badan oo Soomaaliyeed oo hal qoys aan ka imaan shanta Soomaaliyeed ba ka imaaday xaqiiqatan waa sida hadda halgamaa uu sheegay shanta waxay ka yimaadeen Soomaaliyeed way ka yimaadeen marka waxaynu rabnaa inaan ogaano waxa waaye eray bixinta horta lala daba dhigtay oo ah ciyaal waliba ciyaal marka haddana lagu sii daro la dhahayo ciyaal meel maxaa la dhihi jiray laga soo qaqabtay iyo ciyaal sidii carruur la soo xaday camal luuqad ma ahan ciidanka maanta jooga u qalanta ama in la dhaha mudan yihiin haddaynu fiirino maxaa ciyaal yaa la dhahaa ciyaal waxaa la dhahaa يعني قفك عن قان جارين بالده قان جار كنا وسيدا يعني دينتين مركان فيرنا وشان يطبعا حتى قفك هدي لقو قاركو علامتها قان جار كاسون شان يتبنكي جار وقان جار markii hadda reer galbeedka iyo dunida kale loo imaadiyo gaaladan 18 ciidamadan waa qofkii 18 ka yar baa dhahaa bayciyaal loo yaqaan ciidamadan qof 18 jirana kuma jiro qof 15 jirana kuma jiro kurtooda ciidamadan inta ugu badani waa 20 iyo wixii ka sareeya hatta 20ka way ka sii weyn yihiin 23 iyo 24 baa ugu yar ciidankan intaas marka hadana laga tago 18 gobol ama shanta Soomaaliyeed meel kale oo qayla ka jirto ama la iska haysto ama laga maartay caruur baa dabal lagu jiro ma jirto marka what is going on maxaa meeshan ka jira maxaa qarsoon maxaa dadka Soomaaliyeed ogeyd maxaa waxa weeye madaxweynaha shantan qof oo maalin kasta la kulmay ciidanku haday 5,000 iyo abaf yihiin 5,000 oo qof ma waxa dhalay 13 qof miyaa dhalay maya Soomaaliya oo kale 18 gobol kale may dadku may ka banaan baxaan may wax weydiiyaan oo dadka yiraahdaan maxaa meeshan ka jira maxaa we need to know waxa madaxweynaha uu ku mahadsan yahay tilaabadu qaaday inuu xataa dheer sababta ciidamadan meesha ay u joogeen laba arrimood labadaba way ahayd mid waxa ahayd kow in ciidamadan waxa weeye aan loo diyaarin meeshay degi lahaayeen iyo saanadii ciidan iyo equipmentigiis inaan loo diyaarin iyo dhaqaalihii laftirkooda iyo ayaga laftirkooda la siin lahaa waxa soo dhan marka loo diyaarin waxay ku khasban yihiin inta dawladdaas diyaarinayso in ciidamadooda meeshay ku tababarteen ay joogaan marka dalku sidoo kale madaxweyne maxamed Abdullahi Farmaajo wuxuu noo sheegay dalka inuu doorasho u galayo inuu doorasho ku jiray xilliga ay ku soo aaday in ay la soo celiyo dhalinyaradan doorashadeena intay jiitamaysa waa ogeyd marka doorashada ka bacdi in la soo celiyo loogu talagalay hatta imaamooyinkan wiilasheenadii madaxweyne Xasan Sheekh Maxamed xabsi kama soo deynin ka hor bay madaxweyne Xasan Sheekh oo madaxweyne noqon bay dhalinyaradan dalka soo gali lahaayeen madaxweynaha dalka ayay imaan lahaayeen laakiin sababta ay u dib dhaceen waxay ahayd doorasho iyo waxa weeye intaas oo kale asaanadeeda loo diyaarin iyo dhaqaalihi wixii xataa soo qaaditaankii logistigii waxa soo dhan loo diyaarin marka sababtaas ay ciidamadu waxay meesha ku joogeen marka waxaanu rabnaa inaynu fahanno
shaki ma gelinayn annaga madaxweynaha joogta madaxweyne miyaa xasan sheekh maxamed muse ma ahan shaki inaan gelinayno madaxweynuhu ma fiican yahay mase waa wanaagsan yahay ma rabno inaanu maaragtay inaan xaduudda jarno ama inaan limitka aanu dhaafno laakiin waxaynu u baahannahay inaynu wax fiican ka fahanno dadka soomaalida faham fiican ay ka qaataan bulsho maxay ahayd inuu maaragtay soo jeediyo oo xidhiidhka caalamiga ee ka dhexeeya dowladaha inuu dowlado maxay ahaydee si iyo sitaana ama maaragtay uu sameeyo maraykanku uu sameeyey inuu maaragtay dowladaha qaar yidhaahdo dowladda xuniya sidaas oo kale marka inuu taas sameeyo ninka qofka diblomaasiga ama siyaasiga waa ku cunta madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya Xasan